بسم الله الرحمن الرحيم waxaa sharaf noo ah aniga iyo xubnaha kale ee golaha wasiirada gudida u diyaar garowga iyo ka hortagga xarun coronavirus iyo maareeyaha madaarka iyo dhammaan madaxda kale dalka halkan joogto waxaa sharaf noo ah maanta inaanu gudoono deeq qalab caafimaad oo lagula dagaalamayay kii la isaga ilaalinayay iyo qalabkii laga maarmaanka u ahaa inaan wax kaga qabanno xanuunkan aafada ku noqday caalamka ee coronavirus oo ay noo soo dirtay dawladda Imaaraadka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacab iyo xukuumad ahaan waxaanu leenahay waa dawladdii ugu horeysay ee caalamka ee ka soo jawaabta codsigeennii ahaa inaynu adduunyada ka helno taakulo la xidhiidha xanuunkan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa arrintaas waxay tilmaamaysaa walaaltinimada iyo xiriirka siyaasadeed xiriirka dhaqaale iyo ka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dawladood ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Imaaraadka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa deeq aad iyo aad u ballaaran oo ka kooban tiro badan oo ah qalabka shaqaalaha caafimaadku u baahan yahay inuu hawsha wax kaga qabto iyo qalabka kale ee qofka muwaadinka laftiisu u baahan yahay inuu isaga ilaaliyo xanuunka faafidiisa waxaanu aaminsanahay waa waqti adduunyadu ay diiday inay wadamada kale ay xataa iib ay ku siiyaan oo maqlaysaan wadamada qaar in qalabkan xataa cid kale wadato dhex maraya in xoog lagu kala qaadanayay taas marka waxay muujinaysaa dareenka walaaltinimada waxay muujinaysaa laxjeclada waxay muujinaysaa inaynu dhib iyo dheef wada qaybsanayno arrinta aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaanu aad iyo aad mar labaad mar saddexaad ku hadlaya magaca xukuumadda Soomaaliland ugu mahadcelinaynaa oo leenahay shukran jaziilan wad mahadsantihiin waxaanu aaminsanahay dareenkaas inuu yahay dareen aanu qaadanay inuu yahay fariin cid walba gaadhay inana sheegayso sida shucuubta iyo dawladaha ay isugu dhow yihiin waana waqtiga saaxiibka uu barto aad iyo aad baad mahadsantihiin baan leenahay annaguna xukuumad ahaan gaar ahaan gudida u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka waxaanu aaminsanahay inay waxtar weyn oo qarankan loo qabtay tahay waxaanu u isticmaali doonaa sida ugu habboon muxuu ahaa looga hortagay xarunkan aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.